horta shaki kama jiro in Uruguay ay team aad awood badan u yahay aad iyo aad waliba taasoo Srebrevki Latin America kaalinta labaad ay ku soo baxeen ciyaartii ugu dambeysay ka badiyeen Bolivia 2-0 4-2 ay ku dhamatay ciyaartaasi shaki kama jiro marka Uruguay inay galabta Masar ilaahu wastara mooyane shalay weedii kooga wixii soo gaaray Saudi wala ma filayeen badii Saudi in Ruushsa u galo waayo Ruush tarta ku soo gelin kaalintan wuxuu ku yimid dhulka iyo koobka uu qabtay Saudi-gina ciyaarihii ka horeeyay koobka Jarmal uu la ciyaaray si wanaagsan buu ciyaaro si fiican marka horta taasay shoog bani wax laakiin Uruguay iyo Brazil hadii lagu daro waa labada team ee ugu goolasha badan leh inta koobka adduunka joogtay imka Srebrevki marka la isku geeyo goolasha dhaliyeen labada xul waana shay tabiici ah Cavani baa jooga Uruguay oo 30 gool ka badan intuu dhaliyay inka sanadkaas teamkii Paris Saint-Germain iyo marka uu garab taagan yahay Luis Suarez oo 12 gool liyay iyo 18 assist sameeyay ciyaaraha uu soo ciyaaray sanadkaas dhanka kalena dadka eegto difaaca waxa uu jiray Gimenez iyo Diego De oo ka wada ciyaaray Atletico Madrid oo aad isku fahmaya labadaasna oo goolasha labadaas laga xareeyay hadii aynu waa 22 gool tiradaasina waxay sheegaysaa naadiga ugu goolasha yar ee laga xareeyay waa Atletico Madrid maaha Spanish oo kaliya waxa weeyi shanta league ee adduunka ka jirba marka la isku celiyo aqal naadiga ugu yar ee laga xareeyay gool waa labadaas waa naadiga Atletico Madrid sababtoo tahay labadaas fahmaya Diego De ayaa meesha ku jira طبعا شاهي كسو قليهن وافر لبا حوق بالاشي ساريان سن ku argay maajajkoodii hore lagama yaabo in ay khatar bay ku tahay sax marka weerarka xoog aad qaato laakiin lagama yaabo waayo tababaraha meesha ku jira ayaa tababara aad u weyn ah waayo tababaraha ugu weyn sideedaba koobka adduunka ku jira Oscar Cabarez waxa weeye labadii koob adduunka horena waa la joogay Uruguay tababara uu soo qabtay uu ahaa ilama aha ninkaas inta dibadda taagan yahay in weerarka noocaasi ama halis ku keen karaya teamka Uruguay dhanka kale Masar oo saad ogtay Ghana ay Srebrevki ka soo baxday ragooraha waxa uu dhaliyay Mohamed Salah daqiiqadii ugu dambeeyay way ahayd todobadii marar ugu tarnaa Mohamed Salahna way ahayd iyo shacbiga Masar iyo Carabeedba waana maalin leeyla karin طبعا شاحي كسو عياريان waxa weeye 4 2 3 4 2 3 2 ay ku soo galiyaan Masar soo lagu yaqaan ciyaaraha ka hor lagu ciyaari jiray saaxiibtinimada Masar wax weyn may soo dhigin taasina sharti ma aha laakiin in teamkaasi uu noqdo Allahumma salli ala Muhammad ay tusayso awoodiisa yani koobka adduunka wuxuu ka sameey karay wuxuu ka qaban karayba ما عدني ستاسي ودي كان بالبوض ركتو دي مستوى جدي ما عياري ساعة المية عيارتي انت بدي وحل فيلي وحي ما اسكم معه طبعا حديقها عياري محمد صلاح باككوا 44 افريا فرتن جول بو دليي ليفربول سيديدنا اي مصر Srebrevki قارده افريكا اي كسو بخدين ستيت بيهد شن سغا دليس لبنا سغا اسيست و اها oo isaga salaxay